wabarakaatuhu. Walaalaha quruxda badan adduunka daafiisa ku nool soo dhawaada. Caawa waxaa idiin sheegi doonaa, waxaa idin bari doonaa, waxaa idiin keeni doonaa afartan shay ee meesha ku qoran. Cashback, advanced budget iyo profit ayaan caawa idiin sharxi doonaa insha Allahu. Waa saddexdan shay oo ay ku qoran tahay cashback, advanced budget iyo profit. insha Allahu intaas ayaan cashar caawa ku qaadan doonaa. Akoonka waa kana, lacagta waa soo dagootay, atwoog ayuu noqday, cashback lacag ku bilaabatay maasha Allah. Profitkii 15 profit ayuu marayaa iyo 64 second. Marka maasha Allah aan guda galno casharka insha Allahu. San markay tahay waa kana hadda lacagtaani bandinka lacag ayaa hadda fadhiso. Lacagtaas insha Allahu waqtigaan heli doono iyo meesha cashback waqtiga tegi doonto insha Allah cashar kale ayaa ka sameyn doonaa. Laakiin muhiimaddu waxaa waaye caawa inaan ka hadlo meesha la yiraahdo, meeshaas status ay ku qoran tahay iyo sales. labadaas meelood ayaan ka hadli doonaa insha Allah. Okay, status haddaan ku dhifto waa kana wuxuu sameeyey afar sales ayaan sameynay, macnaha 4 jeer ayaan wax gadanay. 4 jeerna waa arki doonaa insha Allah. meesha ayaan noogu qoran tahay. Okay, meeshan advanced budget ayaa ku qoran, waa lacagta lagu qarashgay doono xayeysiismaha. Lacagtaanuna waa amounting spending, lacagta laga soo jaraayo oo lagu qarash gareeyay, macnaha ishaga xisaab ahaan loo sameeyay waaye. Waxaan laga soo jari doonaa lacagtaas $50 ah. Meeshaan markay noqoto lacagtaana 50 ah, markii si lacagta looga soo jaraayo oo loogu darayo amounting spending ayay waxay noqon doontaa meeshaan hoose $50. waxaan isla ekaa doono lacagtan koro oo advanced budget-ka iyo amounting spending haddii meeshaan hoose ay noqoto $50, meeshaan $50 ay tahay, taas macnaheedu waxaa waaye wuu istaagi doonaa robotka oo meeshaan wuxuu noqon doonaa off ayay noqon doontaa, maxaa yeelay robotkan ma sii shaqayn doono. Okay, aan ku laabto meeshaan. Okay, saas waaye. meeshaan waxaa yaallo okay, meeshaan waxaa taallo profit ayaa yaallo. Profitkaasuna waxaan ka helay macnaha 15% ayaa waxaan ka helay macnaha isheeg lacagtii maanta aan galay. Okay, sales haddaan tago kale video waa soo gaabi doonaa insha Allahu. 4 shay waa tana 4 sales oo noo sheegay oo inta ku qorneed waa tana 4 sales ayaan sameeyay 1 2 3. Okay, saleska koowaad waa kana, shirkaddan ayaa wax laga soo gaday $25 wax jooga camalaha la gaday oo robotku u gaday. Rate lacagta la siiyay cashback-geyga ahna waa $1.67. insha Allahu average payment times-ka lacagta la bixi doonana waa 22 maalin gudahooda insha Allah oo maanta ka bilaabanayso. Tanne shirkaddu waa la mid, isku mid waaye labadan oo 22 ayay bixi doonaan. Cashback-geyga lacagtii aan heli doonana oo 22 maalin maanta ka bilaabanaysan ahayna lacagtan cashback ayay geli doontaa oo bandinka ayay ka bixi doontaa. Okay, waxaa soo hartay lacagtan 13 senti. 13 senti waxaan helayaa 30 bari kadib, halka aan $2.62 aan helayay 22 maalin gudahooda. Cajiib. Okay, meeshaan soo hartay shirkaddaani company-gan ayaa waxaa laga gaday $270 lacaga. Lacagta cashback aan heli doonana waa $3.40. 30 bari ayaan heli doonaa. Marka horta saas u shaqeynaya barnaamijka maasha Allah. waa barnaamij fiican, waa website fiican, waa website legal ah. walaalayaal ku soo dhawaada, website fiican waaye. anaa idinka tijaabshay, waa 100% safe. Okay, meeshaan insha Allah waxaa ku jiri doono transfer waa marka lacagta aad la bixaysid, top up waa marka lacagta ku shuba doontid. Status waa meesha hadda idiin sheegay lacagta laga gooyay, lacagta ku harsan iyo meesha laga ogaanayo waaye. Saleskana waa meesha daily lacagahan u sameyn doontid. Meeshaan may marketing ku qoran tahay waa meesha linkiga laga soo raaci doono ka sameysanaysid. Meeshaan waa meesha robotkii shaqadiisa iyo hawl oo dhan aad ka ogaanaysay waaye. Marka intaas ayaa ugu muhiimsan
intaas ayaan website-kan u muhiimsan. Waxyaabahan kale gadaal ka baran doonaa insha Allah. Cashir gooni waxaa ka dhigi doonaa bending iyo cashback, macnaha sidii lacaguhu ay u qaybsadaan. lacagtu waxay mari doontaa bending kadibna cashback u gudbi doontaa. qaabka uu marayso iyo sababtan insha Allah dib ayaan idinka sheegi doonaa. cashir kale ka samayn doonaa. waqti waa igu dheeraaday insha Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.